magacaygu waa xildhibaan binti Ibraahim Cali Koonfur Galbeed Soomaaliya lagana soo doortay degmada Marka. Ujeedka shirkeygan jiraa'id ayaa ah raali gelin ka dhan ah hadaladii xadgudubka ahaa ee gefka ahaa oo aan marnaba loo marin ku habboon iyo aragti sax ah kana iman maskax degan oo si fog looga baaraan degin kaasoo ka soo yeeray qaar ka mid ah odayaal iyo dhalinyaro haween ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan degmadiisa Marka xarunta gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ah caasimadda ganacsiga ee Soomaaliya. waxaan awalan halkan ka cadeynayaa qofka uu yahay mudane madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. tan labaad waa astaanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 3 maamulka ugu sareeya Koonfur Galbeed Soomaaliya. 4 waa hogaamiyaha aqlabiyadda shacabka. 5 waa nabadoon umadeed. meesha waxaa jooga maamulkan wuxuu matalaa nidaamka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wixii meesha ka dhaca ee baalmarsan dastuur goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hab maamuuska mas'uuliyadda madaxda waxay noqonaysaa fal xadgudub ah ama fal dambiyeed. weerar dumin dowladeed oo looga hor imaanayo nidaamka ugubka ah ee dowladnimada Soomaaliya ka hana qaaday 30 sano kadib. waxaan wada ognahay magaalada Marka inay soo martay tan iyo burburkii kadib marxalado kala duwan colaad go'doon siyaasadeed. ugu dambeyn magaalada Marka waxay si rasmi ah go'doonkaasi u gashay 10kii sano ee ka horeeyay dowladda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Laftagareen. kadib doorashada madaxweynaha Laftagareen waxaa magaalada Marka gebi ahaan ka baxday go'doonkii saarnaa dhinac walba oo ah waxaana bulshada reer Marka u shidmay shumac dowladeed. waxaana maamulkii la geeyay la tashiyo badan kadib maamul degmo ayaa dadkii loo sameeyay kaas oo ku yimid wada tashi. waxaa magaalada 30 sano kadib ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka. waxaa la isugu guud ahaan amniga waxaa dib loo yegleelay adeegii bulshada waxaana dadkii u ruuqansadeen dhabaha horumarka dalka uu u jihaysan yahay taasoo sababteedu lahaa hogaamiyaha aqlabiyadda shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. maanta ma filayn in abaalkii madaxweynaha iyo garab istaagiisii gaar ahaaneed lagu abaal mariyo hadallo aan loo fiirsan meel ka dhacna ah eedeediina dusha loo saaro. waxaan madaxweynaha leeyahay mudane madaxweyne dadka reer Marka waa ay ka xun yihiin inta aragtida xun le maahana waxaa ka badan inta aragtida wanaagsan ee wax dhista mar walba wanaagana jecel. annagana ka wakiil ah oo matalna raali gelin kaaga wadna adigiyo dowladdaada. waxaan leeyahay walaalaha hadlay aragtidiina hadday tabasho tahayna idinkaa afkiina isku loogay oo wado qaldan u maray iyo nidaam aan habboonayn oo garowsada oo ka garaaba gafka aad geysateen. dowladda waataan ku wada noolnahay iyadaana lagu wada noolaan karaa iyadaana dowladnimana deeqda. ma ogolaan karno in si fudud shakhsiyaal ay u yiraahdaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan ka go'aynaa waayo waxaan ka soo marnay xaalad aad u adag dhismihii aasaaska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. hadday noqoto dhiig naf maal iyo muruq maskax caqli iyo aqoon intaba waan isugu geynay in la yiraahdo hadda waxaan rabnaa inaan goosano amba dib ayaan uga baxaynaa wax soconaya maaha caqligana ma qaadanayo. marka arintaasi
waxaan leeyahay dadka walaalahay ee shacabka ee ka soo jeeda degmada marka ee aniga aan ka dhashay isla markaasna aan ahaa deegaan doorashadii degmada marka inay arintaas ka fiirsadaan gefka ay geysteen madaxweynaha aflagaadada ay u geysteen inay dib uga noqdaan isla markaasna apologize ay ka bixiyaan waayo madaxweynaha waa madaxweynihii ummadda koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu mathalaa bulshada reer koonfur galbeed annaga ayaa idinka wakiilay shacabkeena wixii aad tabanaysaan inaad miiska wada hadalka soo fariisataan waa doow laakiin aflagaado iyo in la isxagxagto in mas'uulka urul amrigeena ahaa la aflagaaday marna ma qaadanayno mana u dul qaadanayno waayo annaga arintaasi aad ayay noo xanuujisay meeshan waxaan u joognaa mar walba idinkaan idinku matalnaa mar walba magaciinan ku joognaa walaalaheena tiin waalidiinteena tihiin marka waxaan rabnaa shacabkeena inay xaaladda sida aad u dhigteen si aan ahayn inaad u dhigtaan inaad dejisaan xiisada aad kicinaysaan waxa meesha aad ku sheegaysaan maba jiraanba madaxweynaha waa madaxweynihii shalay annaga soo dooranay aqligeena maskaxdeena iyo ogaalkeena anagoo taaman ku soo dooranay maantana in lagu xadgudbo cid aan ka ogolaaleyno ma jirto waxaan idin leeyahay mar walba dib isugu noqda isxalliya waxa aad wadaan joojiya wax walba mas'uuliyiintii aad soo dirsadeen idin jooga mar walbana annaga waxaan diyaar u nahay waxa aad ka tabataan inaan xallino wabillahi tawfiiq